1 hour after your funeral, hal saac kadib aaskaaga the crying slows down. oohintu way yaraanaysaa. Your family goes home to take care of guests. qoyskaaduna guryaha ayay dib ugu laabanayaan si ay u maamuusaan martida ku timid khabarka geeridaada, While your body meets the organisms in the soil. halka jirkaaguna uu la kulmayo noolaha ku hoos jira ciidda. By the end of the day, maalinta dhammaadkeeda people are already talking about sports, news, and politics. dadku isla markiiba waxa ay bilaabayaan in ay ka sheekaystaan wararka, ciyaaraha iyo siyaasadda. Your reflexes are gone. adna falcelinta geeridaadu waa ay dhammaatay. Your body begins to cool down. jirkaaguna waxa uu bilaabayaa in uu qaboobo. A few days later, dhowr maalmood kadib your workplace looks for someone to replace you. goobtaada shaqada waxaa laga baadi doonayaa qof ku beddela. Your body starts to swell. adna jirkaagu waxa uu bilaabayaa in uu bararo. Your skin becomes tight, maqaarkaaguna waxa uu noqonayaa mid cariiri ah. and your organs begin to turn into liquid. xubnahaaga gudahana waxa ay bilaabayaan in ay dareere isku beddelaan ama ay milmaan. waxa uu kala jeedaa beerka, keliyaha, sambabada iyo guud ahaan uurku jirta. 2 weeks later, your family sits with a lawyer to divide what you left behind. 2 toddobaad kadib qoyskaagu waxa ay qabsanayaan ama ay u tegayaan qareen si ay u qaybsadaan wixii aad ka tagtay ama hantidaadii. Your nails and teeth begin to fall out. adna ciddiyahaaga iyo ilkahaaga ayaa bilaabaya in ay ka daataan jirka intiisa kale. 3 months later, 3 bilood kadib your spouse laughs again. xaaskaagii ayaa bilaabaysa in ay mar kale qosasho. Your children smile again. sidoo kale carruurtaada ayaa iyaguna mar kale dhoolla caddaynaya. And you keep breaking down into the earth. adna burburka jirkaaga ayaa ku sii dhammaanaya ciidda. A year later, sanad kadib someone visits your grave and says, "It feels like just yesterday." qof ayaa soo booqanaya qabrigaaga wuxuuna iska dhahayaa waxay u eg tahay geeridiisu shalay inay ahayd. And by now, the acids of your body have destroyed your burial cloth. isla markaasna aashitadii jirkaaga ku jirtay ayaa cuntay maradii maydkaaga lagu aasay ama karfantii. 10 years later, 10 sano kadib a friend sees your photo and remembers you. saaxiibka ayaa arkaya sawir aad wada gasheen wuuna ku xasuusanayaa. Only your bones remain. adna keliya lafahaagii ayaa haray. This is how quickly the world moves on. sidaan ayaa adduunku si dhaqso leh ugu degdegayaa. So who are you really living to please? markaas yaad dhab ahaan u nooshahay in aad raalli geliso. The people who forget you within days, ma dadka ku hilmaamaya maalmo gudahood, or the Creator who remembers you forever? mase allahaaga ku abuuray kuna xasuusanayo weligiis. tan macnaheedu waa aakhiro ma jirto wax ehel ah, saaxiib ah, walaal ah ama wax kale oo kaa difaaci kara sharciyada aakhiro yaalla ee aad martida u tahay habeenka koowaad ee qabrigaaga, maadaama aad ka guurtay kana tagtay inta aan xusay ee adduunka ku garab taagnaa. mar haddii kuwii dadka kuugu dhowaa maalmo kadib geeridaada ay qoslayaan, sida xaaskaagii, carruurtaadii, waalidkaa waaba hadday kaa dambeeyaane, yaad u nooshahay adduunka? ma ilaahay oo aad ku dambayn doonto, mase kuwaan aad ka tegayso ee maalinta aad go'do aad ismacsalaamayseen? ujeedka koowaad ee uu muuqaalkaanu ku xasuusinayo ama uu xambaarsan yahay waa in aad ogaato in bini aadamka loo abuuray in ilaahay subxaanahu wa tacaala ay caabudaan
sida asaguba uu leeyahay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun. ujeedkuna wax kale maahan ee waa in alla yahay subxaanahu wa tacaala kan ku xasuusanaya weligiis, isla markaasna aysan ka qarsoonayn wax kasta oo ficil ah oo aad samaysay, hadduu yahay mid yar iyo hadduu yahay mid weyn, hadduu yahay mid xun iyo hadduu yahay mid fiican. faman yacmal mithqaala daratin khayran yarah waman yacmal mithqaala daratin sharan yarah. gabagabada muuqaalkaygu waa inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala xasuusnaato si ay lafahaagu u badbaadaan berri marka aad aakhira tagto ama godka lagaga dareero. وما سنتين.